السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كليب كان جابن أو طبعا كان دقيقة نقول تلاقي له كليب كل أوس الرمان السياسة كوسابسن خاصة وحكوسابسن هي بوتلان هيلان يسناق إيوه SSC خاتمه حاسكو هايستان حاجره حاسو كردي هذا قيلان يريسه محيطه waxaan rabaa fikirkeena ku soo gudbo marka ugu horeysa dadka shacabka ah oo Soomaaliyeed oo degan ilaan waxaan ku hadalaa codka shacabka aan hadlin waxaan rabaa inaan u soo gudbiyo saddexaas meelood aan tilmaamay dadka degani waa dad isku mid ah oo wada degan oo dhulku ka dhaxeeyo oo dawladnimadu ka dhaxayso oo islaamnimadu ka dhaxayso oo Soomaalinimadu ka dhaxayso oo dhalashadu ka dhaxayso oo deegaanka iyo ceelka iyo carshinta ka dhaxeeyaan ayagu isma haystaan sida xaqiiqada marka la rabo laakiin meesha ay sartu ka qoruntay baan rabaa inaan la wadaago si sax ah runtii arintaas waa arin siyaasadeed arintaas siyaasadeed oo si toos ugu xiran doorashada 2026 ee soo socota oo Xasan Sheekh uu diyaarsaday dadka u maamuli lahaa iyo Prime Minister asaga sheebkiisa ku jira oo wixii asagu markaas uu sameynayo la socda marka intaas la hesho habdhaqanka Soomaaliyeed hadda meeshay marayso siyaasadda Soomaaliya marka aysan iskhilaafsanayn ama isku mid yihiin ama iskhilaafi karaan isku hal qof yihiin madaxweynaha iyo Prime Ministerka iyo guddoonka baarlamaanku markay isku hal jeeb ku jiraan oo maxal maskax iyo hal nin uu wato waa marka kaliya ugu dhowdahay inuu xun isku dayo waxyaalahan oo kala ah oo uu ka dhax arko doorashadiisa soo socota meeshu marsiin lahaa haddaadan marka fahmin meeshaan in waxa laga hadlayaa ay tahay ama arrimaha loo sheegay SSC khaatuma ay tahay waa ku aqoonsanaynaa waxaan ka dhigaynaa dawlad goboleed waxa laga rabaa inaad qaybtaas keento si aad shuruudo u buuxiso annaguna waxaan ka rabnaa doorashada 2026 marka la gaaro kuraasta taala labadaas meelood Sanaag Highland iyo SSC Khaatumo kuraasta taalo aqalka sare iyo aqalka hoose oo federaalka iyo kuraasta Puntland qayb ka mid ah ileen waxaad ogtihiin Puntland waxa lagu dooran jiray ama haddaan sida runta hadalka u dhigo saxda ah waxa selectionka lagu sameyn jiray oo qaadan jiray madaxweynaha markaas Puntland maamula labadaas gobol dadka ka soo jeeda aqalka sare iyo aqalka hoose labadaba iyo meelaha kale iyo deegaanada kale iyo qabaa'isha kale iyo jifooyinka kale oo degan Puntland waxa markasta maamuli jiray oo markii ugu darreed ay waliba ahayd xilligan Saciid Cabdullaahi Dani qofka asagu uu rabo inuu soo qabto uu ku qoro kursiga aqalka sare iyo aqalka hoose oo federaalka labadaba iyo sidoo kale xildhibaanada dowlad goboleedka Puntland isagoon qofna u aabadayn oo qabiilka kale u aabadayn waxba weydiin oo shifo kala fiirin asagu rabitaankiisa qofka uu rabo inuu dooranayo ama wadanta khaaska ku leeyahay asaga qori jiray maadaama markaas uu inta soo qorahayay oo labadaas deegaan iyo deegaanada kale Soomaaliya soo qorahayay waxa diidahaya ma jirto maantay marka dawladda federaalka oo lagu soo kiciyay dadkii ay Saciid Dani isku dhaceen oo xamar aaday iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo ay noqonayso arintaani tijaabadiisii saddexaad waxaad ogtihiin kow markii la doortay qalaasi ugu horeeyay wax ka dilaaceen Hirshabeelle ka dilaacday laba group oo kala jabeen lacag baa lagu hurgufay waa la isu keenay waxa la ogoleysiyay dagaal baa la geliyay dagaalka markii la geliyay qaybahoodii kale waxa la ogoleysiyay cali Guudlaawe baa la ogoleysiyay wixii ay markaas ka cabanayeen waa aamusay amahan kaas kii koobaad baa kii labaad wuxuu isku dayay raaskan booni ciidan ka hayay
أحمد مدوب إن لقى تخلصه وليبا لقول دي ردو إن ورقدنا قرر هو السوق طبعا هيا وأيضا بورصة كلا فرنتة شاب كلا حرك كلا فرنتة إنه قرر بكل دي ردي حسن يا حمسي أنت سوا أسعون ويدي وأكوف الشلمان وأكاديين وحيسكت ضيان إني إسلام مركبة كحريريان قبل كده يتشوف لنا إسكو هركيانان والله هذا الذي يقابك يوحي يرجع ذيك سنة هايين يمكن باش تجان وحيو أركان إني مسنا أنتانو حل كيني كرتو فشل كله وكي كسمعي كقبصدي راس كامبوني دب ودجان مرك أنهول بكوتش تحت أرتاس وزن أكسعتها وهو مركا حدا وريجي صدحاد لسوء هذه بدلان أو مركي هراء سيد عبد الله الدني إيو أحمد مدوبي إيه حسن شيخ محمود isku kiish bay ahaayeen raggii soo boobay xildhibaanadii deegaanadooda oo kuwii dawladda markaas jirtay ay soo magacawday diiday ceel qaal ka keenay garow wixii ka dhacay Soomaaliya kooda dharagsan tahay dani wuxuu qoray iyo wuxuu sameeyay la ogyahay raggii saawada socday oo meeshii madaxweyne markaas jiray iyo Prime Minister-kiisa isqabadsiyo isku diray markii dambena la wareegay oo qaabkii ay rabeen u maamulay xasan soo saartay ayaa dib isugu dhacay oo isqabsaday hadda marka rag isqaan oo filan ay hore u soo jireen oo cad u muuqdo ayaa hadda haysta waa dani si Abdullahi dani iyo Axmed Madoobe oo meel ah iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo wata xamse oo isku aragtina yihiin isku midna yihiin kuna shaqeynaya fakarka حتى هذا كعيبه بهاي وكفر حمانة هاي أو أسجع سندن وجرين كل شقينا هاي فكر حسن الشيخ محمود أنت أمرك وحي سلك كوهاي سا أو حسيد حقيقة ده أي تهاي والربعين الشعب وفهمان دي جناس شوجا أنت اللي سكوها عن سياسة دوي عن سياسة دوي إن حل بعنا ده لبكون يلح يلا بعتنك أي الله صعدا هل كاس الله صعدا أول غير واحد بلعبتي دور الشداس أول هذه بقى كتير هاي مرك أما استمادة مقعدة هلا استعماله أما عيدا هلا استعماله أما معمولة ذاتك خلا معمولة هلا يسكت درو أو رياضة هلا استعماله أما هسيك الفوقاتو الصومالي هسكت عضو أما ديك هكود عطو وحاس أردن حبك كمجلين وحبك كمجلين حسن الشيخ محمود يا حمسي لا بقى سن باوضة ربيتان كود نروح ويا سايدين شيء لا بكون اللي حلا بعتنك اللي بعنا ذا كسر بحها هي قبل الله راس إن أيوه قرآن هل كاكو قرآن kuwa Puntland qayba kamid ah halka keenan oo yiraahdaan shalaba halkaas lagu qori jiray laba magaalo isku mid ah weeye waana xaqiiq way lagu qori karaa dhamaantoon hadii ay ka soo yaacaan oo Puntland ka soo yaacaan garow ay yimaadaan lascaanood yimaadaan wax u diidi kara lama arka sababta intaas sana lagu qor xaq lagu qorhay marka labada dhinac waxay rabaan isticmaalaan kuwa ka soo jeeda Soomaaliya sanaag iyo cayn ka soo jeedana in halka lagu qoro si toos ah lagu qoro wixii Puntland ka soo jeedo oo saluugana halka la keeno oo ceel qaal loo kala idin ay noqoto halka laga soo qoro markaas sida xaqiiqda ah hadaan saa u fahaminin waxaad la yaabaysaa ama ka mid noqonaysaa dadka baraha bulshada ka caytamaya ama Puntland caynahaya ama Saciid Cabdullaahi Dani si shakhsiyan oo caynahaya ama Firdhiye caynahaya ama SSC Khaatuma caynahaya ama gobolada Highland say sanaag caynahaya iyo isimadooda warqaday soo qoreen xaggay ka boodeen waa iskhilaafeen waa kala boodeen waa soo horjeedaan waxyaalahaas oo dhan baad ku milmaysaa waxaad noqonaysaa qof aan waaci ahayn aan la socon xaqiiqda meesha safka qorsan tahay wax marka isdiidan taas oo dhan baa jira waxyaalo badan oo dana badan baa istii laakiin meesha ugu hooseysa oo loo socdo oo hadda ka socda gilgilashada ka socota nina ma diidana Puntland ma diidana ama maamulka Puntland ma diidana xataa Saciid Cabdullaahi Dani ma diidi karo Highland maakhir iyo Khaatuma in israacaan oo dowlad goboleed Puntland lamida oo daris la ah inay noqoto ma diidana qaabka farsamada loo dhindhiranayo inay wuxuun ka diidan waa dhici kartaa dadka diidana oo ama hadallada qalafsan ku hadlahayaana ay khaasatan waliba ay yihiin dad ka soo jeeda isla Khaatuma oo ka shaqeeyo oo jooga wasiir ka ah ama xildhibaano ka ah Puntland kuwaas oo markasta fiirinaya kursigooda iyo shaqada markaas ay hayaan oo ayada laftigooda arrimo siyaasadeed marka waxa meesha isku hardinaya waxa weeye dad Soomaaliyeed oo siyaasiyiin ah
oo kasoo kala jeeda meelahaas idin sheegay kasoo kala jeeda oo isku haya kuraas iyo ballanqaad loo sameeyay oo dawladda xasan sheekh maxamed u sameysay qayb ka mid ah iyo qayb Puntland jooga iyo Khaatumo oo muhiimadeedu ugu weyn ay tahay sidii u noqon lahayd dawlad goboleed dhameystiran xamar markay tagtayna lagu soo xiray dawlad goboleed baa idin ka dhigaynaa inta warqad la qoray idin ka dhigaynaa waa idin ka dhignay lama dhihin waa idin ka dhigaynaa laakiin waxaas noo sameynaysa wixii loo soo diray listigii loo soo qoray buu la soo noqday firdhiye listigii ka tigsiinaya markaas halkaas isku socota waxoo dhanna waxay ku xeeran tahay oo calaaqa la leedahay doorashada soo socota 2026 qaabkii loo qoran lahaa oo loo kala goosan lahaa xildhibaanada ka soo jeeda deegaanadaas Saciid Cabdullaahi Dani wuxuu og yahay arinta meeshay u socoto iyo qaabka loo wado waa ninkii shalay isagu sameeyay qorshihii shalay uu sameeyay oo tii ka horeysay doorasho laga sameeyay garow laga sameeyay oo waxay ku sameeyay hab dhaqankii baa socda qaabkii wuxuu ka xanaaqahayo marka erayada kulul ka soo saaraya nacayb kale iyo xumaan kale iyo SSC Khaatumo dawlad ma noqon karta iyo sanaags ma raaci karaan iyo sheekadaas oo dhan waxa meesha ka weyn oo ku habsatay oo fuusto ama gobol ku gambiday waxa weeye aqoontii hore uu yaqaanay inuu qofku rabo qoro oo xildhibaan golahaas aqalka sare ka dhigo oo xildhibaan aqalka hoose ka dhigo oo xildhibaan Puntland ka dhigo asagu uu qoro oo jifa kasta iyo qabiil kasta oo ku magacaaban reer Puntland loo qoro qofka markaas madaxweynaha markaa meesha jooga qofku uu rabo uu qoro oo dib ugu noqolin deegaankiisii iyo qofkaas shakhsiyadiisa iyo qabiilkiisa iyo jifadiisu waxay u yaqaananaysa macna sameyn inta suuqa la tago qof markaas laga dhaxarkayo danta madaxweynaha markaas jooga Puntland inuu qorto qaabkaas jirtay qaabkiiba marka filimkii aad shalay lagu jiray yaa maanta wuxuu ka dilaacay magaalo agteeda oo 1 saac iyo 20 daqiiqo kaliya loo socdo ayaa waxa u guuray oo la raba in loo raro Xasan iyo Xamse u raraan ila ragas dirsan way dirsan Xamse iyo Dani was dirsan yihiin Dani iyo Saciid inkii leeyahay Xasan Sheekhna siyaasadda isku dirreen halkaas baa la raba marka in loo raro halka la geeyo ragaasa marka haysta ragaasna waa rag Soomaaliya dawladnimadeeda jiitanka oo qabyaalada iyo jifaysa ku safaysan inta soo waday ayna daawada ku soconayso taayir la'aan ku soconayso way qofka marka Soomaaliga ah oo Soomaaliya dhinac ka sax ka joogay waxaan kula talin lahaa inuusan hadallo xanaf leh iyo hadallo cay ah iyo hadallo af la gaada uusan isticmaalin uusan shacabka reer Puntland cayn shacabka reer SSC Khaatumo cayn shacabka reer Highland iyo Sanaag iyo Khaatumo cayn ismadoodana cayn nin aan waxba qaban karin uusan tuhmin meesha sartu ka qorunsan tahay meel aan ahayn inaadan aadin oo sida xaqiiqda aad runta u sheegto haddaad runta sheegi karin aska aamusto haddii qofka runta sheegaya arintiisa kula qalacnaato oo aad u qabto wuxuu sheegay waxba ka jirinna inta dhageysato adigoon caytamin ama emailo soo dirinin inaad fikirkaaga ka jeedisid oo ku soo qortid public clip hadda aan duubayno qof kasta oo dhageysta oo Soomaali ah wuxuu xaq u leeyahay inuu si public ah ugu soo qoro meesha hoose fikirkiisa oo yiraahdo may waad khaldan tahay iskuma haystaan Puntland iyo SSC Khaatumo iyo maakhir iskuma haystaan saad muddo maaha arrin siyaasiyad maahan arrimahaas aniga ee muuqda fikirkaagu waa muhiim ku soo qor waxaad aaminsan tahay laakiin waxaan rabnaa anagu dadka meesha wada degan iyo dadka Soomaaliyeed oo meel kasta Soomaaliya ka degan in aan la isku dirin oo aysan sacaayin oo meel aan sheekadu jirinin aan loogu sheekayn inaad waxaad la diidan yahay inaad dowlad noqotaan baa la diidan yahay isimada idinka soo horjeeda warqadaha la idinka qoray reer baa lugta idinku dhegan inaad tagtaan baa la diidan yahay inaad wax noqotaan baa la diidan yahay waxaas oo dhan waxaan anigu u arkaa inay tahay huuha xaqiiqda dhabtaana ay tahay saa idin sheegay arrin la xiriirta arrimaha siyaasadda soo socda waliba doorashooyinka soo socda 2026 raggii shalay isku gruubka ahaa oo Xasan Sheekh iyo Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Madoobe iyo Xamse oo isku lamaanayo mataana yihiin Xasan Sheekh isku mid yihiin oo aan anigu gaar uga qaadi karin markaas isku dhagan yihiin ayaa sheekada wada waxay samaysteen guddi doorasho baa uu samaystay Xasan Sheekh Maxamuud oo aan sharci ahayn oo nina u soo waafaqsanayn wuxuu rabaa marka maadaama uu haysto saan idin sheegay gudoonkii baarlamaanka
baarlamaankii shalay la soo wada xulay oo saan idiin sheegay qabiil iyo jifo soo xulatay iyo diin iyo akhlaaq wax lamid ah jireen dadka isagu ay qorteen oo isla ogaayeen oo kali ah ay ku xiran tahay maalinta doorashada maalmaha ka horeysa in koox loogu yeero wixii la sameyn jireen wad garanaysaa la sameeyo intaas ku xiran tahay haddii marka xasan sheekh ay arinta u socoto oo u gasho oo ku guuleysto in uu soo qorto halka ka soo qorto doorashooyinka marka la gaaro uu ka soo qorto waxay u noqonaysaa guul siyaasadeed iyo madaxweyne Soomaaliyeed oo kursiga madaxweynada ku fadhiya ten labaad ku fadhiya hadduu saa sameeyo ka soo qaad xasan sheekh maxamuud hadduu saa sameeyo ma ku eedeysan yahay maya kuma eedeysna inaan dad soo qorato madaxweyne ku noqoto Saciid Cabdullaahi Dani baa ugu horeeyay doorashada hadda la soo maray bay ahayd run sheeg waa xaq sheeg haddaad u taqaan adigu run sheeg waa been sheeg beentaa wey run sheeg waa xaq sheeg hadda doorashada ugu dambeysay ku soo noqday Saciid Cabdullaahi Dani dadkii uu soo qortay asaga oo deegaanadaas dadkii deganaa ah uu soo qortay oo asagu gacanta ku soo qortay ayaa madaxweyne teemkii labaad ka dhigay haddii marka ay u marto oo Soomaaliya ay geesaha ka qaban weydo oo dad midaysan oo isbedel doona oo federaal la waayo oo xasan sheekh iyo xamse ay ku guuleystaan inay soo qortaan dadka dooran lahaa oo ay ka soo qortaan Sanaag Khaatumo Puntland Hirshabeelle Jubbaland meel alla meeshta ka soo qortaan ay soo kaxaystaan xamarta keenaan si amniya ay u keenaan oo u socon weydo doorashada hadda leeyahay doorasho qof iyo xabadahan qabanayna ay socon weydo oo halka loo leexiyo ama inta kuraas la keensado oo dad magaalo kasta koox meel lagu soo aruuriyo oo tii hore ka fiican oo la yiraahdo magaalo kasta waxaan ka rabnaa 3,000 oo qof baan ka rabnaa oo 3,000 oo qof ayagu yaqaanaan oo dad ay shaqaalahooda ay shaqaaleysiiyaan oo lacag siiyaan ah intay keenaan ay warqada ugu ridaan oo ay soo celiyaan ku khaldayaan ma kuma khaldana qaabka Soomaaliya ku socdo waa qaabkaas weeyaan dowlad gobolka saa ku socda Puntland baa saa ku socotay Jubbaland baa saa ku socota kuwa kale oo hadda aamusan baa saas raba nin kasta arrimaha siyaasadda markay ay joogto marshada uu gashan kara ayuu gashtaa marshadaas uu gashtaa marka nin ku eedeysan oo maxaa u sameynaysaa maxaa u sameysay maadaama ay qaabka ku socoto ma jirto wax raba inaan inta ku soo koobo shacabka Soomaaliyeed ayay ku xiran tahay inay intay isu yimaadaan dawlad sharaf leh oo ay leeyihiin oo ka fikirta rabitaanka shacabka sanad ka hor sheegnay waa biyo nadiif ah waa caafimaadkooda waa waxbarasho free ah waa amni oo ugu horeeya waa sugitaanka xuduudaha dalka waa calan midaysan waa ciidan xoog leh marka shacab nooca u fikiraya la helo ayay Soomaaliya soo noqon doontaa laakiin inta qabyaalad iyo jifaysi labadii siyaasad isku qabata loo istaajinayo leeyahay reer hebel iyo reer hebel baa isla leeyahay Soomaaliya ka istaagnaanaysa shacabkuna qaybna waa tahriibaysa waa cararaysa qaybna gaajo ayay meelaha la taagnaanaysa qaybna hay'adaha $7 soo tuuraya oo aas ku soconaysa xiriir qaxooti